السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan inoogu furaya markuu ugu horeeya aayado quraan oo mahad inoo akhriyo yaasiin aayadaha quraanka walaal ku soo dhaw mahad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق وافتلا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. صدق الله العظيم. أدي أضام هاتسنتهاي وحلوه آخر سورة يوسف وكهل لسي أوارها مركي بقركم ورياضي تطبط الصعب اعتضاه تطبط عسى صعب ورعنيه بركو رياضي إنه بشكل مركا أوارها أي لحن دارن تاسي إنه آخرية. جزاك الله خير. أدام هاتسنتهاي انت كدب وحوي بروجرام كان عاوز كل واحد نرجو سلامية وسيرك أرمها الدبندة الصومال سعد أو نومرتيه واشنطن اريا waxaan maleynayaa dad badan maanta caawimeyman laakiin waa maalin weekdays waxaan masuulin mid halkan in aanu maaragtay abaaraha wixii aanu tari karno aan ka warrano. marka waxaan rabaa programka inaan ku bilaabo marka ugu horeysa إبراهيم ورسمه وطوق مجالنا ده إنه برنامج يسوي إنه بلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد من لا نبي بعده. وسلامتكم دمانتين وزيرك مرتي شرفك دمانتين انكستو يركا بسمعي وقت بدلنا ينفردني ودنا وينو صعونا وحي تالكينا عاو مهمتين اما بلانت الله قبطي وحي هاي جيددو محينو كتاري كرنا maxaynu se ku tari karnaa ummadeenna dhibaatada iyo abaaruhu halakeeyeen iyadoo aad wada ognahay waxaad ogtahay ma kuu sheegaa uun wey faraska usha waxa loogu dhiftaa ma aha inuu gaabis yahay waa ha digtoonaado hana ku daro hawsha inta ka harsan iyadoo ay jirto isla markaana aan ognahay guri walba
in gubtaa way hoos taallaa dhibtu qof kasta heer bay u taagan tahay haddana labada gacmood sida diinteennu inoo sheegtay ta sare yaa fadli badan labadaada gacmood markaad eegto taa wax sarraysa yaa fadli badan marka waa sadaqad waa ajar waa waqti qofku u baahan yahay man yaqridullaaha qardan xasanan fayudaacifuhu aayadaheenna ilaahay oo inoogu sheegay baa caddaynaya qofku inuu wax baxsado inta uu adduunka joogo uu caafimaad qabo wixii ilaahay ku siiyey isagaa ku siiyey isagaana leh marka waa imtixaan laynagu eegayo maaha maal qofku waynu sheeganaa laakiin tii waa cadiyad karaamo ilaahay ina siiyey qof walbana waxa uu dhigto uunbuu maalinta yoomal qiyaamaha ee la qaawan yahay ee la qatan yahay ee wixii camal ah ee qofku dhigtay uun kitaabkaagii laguu dhiibay ku yaal uunbaa lagu baxsan karaa adduunka inta la nool yahay isagaaba ilaahay nin ka dhiga dhexdhexaad nin xoolo fiican siiyey ninna aanu gurigiisaba dab ka shidnayn waa imtixaan la isku eegayo ummadda marka caawa sii badin maayo hadalka dadkuna waabuu yar yahay ciddii sadaqada oo noocyada jaariyadda ka mid noqon karta maalinta la baahan yahay wixii karaankiisa qofku isagaa qof walba naftiisa iyo gurigiisa ku xisaabtami kara muklif maaha ujeeddadeennu caawa inagoo wasiirkuna inooga warrami doono dalkii iyo dadkii isagoo nin walba runtii technology-gu oo aada inoo caawiyo maanta waxa Hargeysa ka dhaca ama xamar ka dhaca ama dee all over the world adduunku waa xeedho waa container kaasaynu ku wada jirnaa dhinaca badda dhinaca bariga galbeed bari wixii ka dhacana waynu ognahay waana ina saameyn karaan marka arrintaa waxaa iskale wasiirka wixii warbixinaynu u baahano isagaa intay naga dhiman inoo naashnaashi doono ama inoo kordhin doono ujeeddadayda aan u soo kacay Ibraahim ma aha howlo kale dee hawshaas ay noo taalla waxaanan ku wareejinayaa daadihiyaha xafladda ama fadhiga iga qaba baabud waad salaamantiin idinkuna jazaaka allahu khayr aad iyo aad baad mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay haddana waxaan nagu soo dhaweynayaa kanaje khaawi kusoo dhawow wallahi aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin doorta caawa tabarteenu ma badnaa mar haddaad aragto hablihii oo aan raggii ka badnayn micnaheedu waxa weeye caawa waxaynu ururinaa ma badnaanayaan sababtoo ah waxaan garanayaa maalintii ugu dambeysay aan ururinay abaaraha gurmadkooda aan ururinay faarax iyo waan wada joognay giddigayo wixii aan ururinay raggii oo dhan markay isu tageen inan baa waxay bixisay xoolihii marka 3 meelood loo qaybiyey inan iminka halkan fadhida ayaa waxay bixisay 2 meelood ahaan raggayagii oo dhanna waan isu wada tagnay waxaan bixinay meel ahaan marka horta hablaheen ilaahay ha u barakeeyo ubadkana ilaahay ha u barakeeyo xoolahana ilaahay ha u barakeeyo hablaheen waxa weeye meesha waddankeenu ka dhiman waayey yaanu garan maayo idinku ila Hargeysa xilligii idinku dambeysay aanu Hargeysa waxa tegay 94kii anigoo jaamacadan soo dhamaystay aad iyo aad u qeyraysan ayaan meeshii tegay bariga aan tegay gaari aan qori saarnayn muu mari kari jiray magaalada
waxay ahayd markii ugu horreysay dalka la soo galay raggu isku mid may ahayn berigaan dalka ka tegay waxay ahayd aabbahay wuxuu ku jira allah yarxame ragga ugu sarreeya sababtoo 6 wiil buu lahaa hargeysa markaan ku noqday lacag baa la ii soo diray markaan xoogaa joogay hargeysadii markaad waa lagu baaranayaa kolley xoogaa markaan joogay adigu lacag baa la ii soo diray lacagtii waxaa laygu yidhi waxaad samaysaa haa damiinba lagaga baahan damiina haa maraykan baan ka baasboor haystaa waxaas ma jiraan baa laygu yidhi inankii wuxuu wax kuu sheega hee waxaad samaynaysaa haa nin inaani u maqan tahay ayaad keenaysaa sheekadii baan garan waayay dabadeetana maxamed cali bile oo markaa ku soo degay ayaa i kaxeeyey markaa wuxuu igu yidhi raggaa magaalada jooga nin inaani u maqan tahay unbaa dahabshi cid ka damiiran kara micnaheedu waxa weeye hablaha masaariifta 25 soo diraan wiilashuna waxba soo diraan marka anigu waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ilaahay hablo wanaagsan na siiyey in hablihii imika ay naga badanayaan maasha allah horumarkeennii wuxuu bilaabay markay habluhu naga bataan marka bal waxaan idinku gubaabinayaa waaye caawa intaan raggee meesha joogtaa bal sidii habeenkii hore nagu dhacday aanay nagu dhicine jeebka aynu gacanta gelino aynu hablaha ka badanno anigu waxaan ku qaybsanahay inan barhkeed marka ninkii igu soo biiraya hadduu faarax igu soo biirayana waa halkeeda marka anigu inan barhkeed baan buuxinaya inanta ugu tayada yar ayaan barhkeed buuxinaya faarax iyo anigu haddaan isku darsanana waxaan u malaynaya soo dhadhaweynayno intiina kale 5 hablood ee hadhay bal intay bixiyaan wax u soo dhow barhkood xitaa bixiyayna odhan maayo ayaa laydinka baahan yahay hadalkii waan ku dheeraaday wasiirkana inuu igu caajisama doonayo marka dee aad iyo aad baad mahadsantihiin ilaahayna haynoo barakeeyo anigu special reer bariya baan ahay ninkii reer bari unbaa garanaya nimanka reer galbeedka markay abaartu ku dhacdo dee marka roobku yimaado beerta way soo baxdaa annagu markay abaartu dhacdo xoolaha naga dhammaada markaa beer soo baxaysaana ma jirto marka annagu reer bari waan noo abaarta waan naqaanaa dhibaatadeeda marka waxaan hadal ku dheeraan aad iyo aad baad mahadsantihiin warbaarudu miya jazaak allahu khayr waa aad baad mahadsan tahay haddana waxaan kusoo dhaweynayaa safiirka rashiid kaaruf alle kusoo dhawow intii abaarta laga oranayay la yidhi intay yidhaaheen in ka wanaagsan oo dhan ma kari maayo laakiin warinteeda waxaan ku darayaa intaan gana jiiraan una markhaati baa kooba habeenka ugu horreeyaan arko raggoo ka bataan raggoo ka bata dumarka laakiin barashar badan saari mayno dumarka aad iyo aad baa mahadsantihiin runtii waxaan idinka raaligelinayaa inaanu soo raagnay waana qiranayaa runtii anigaa ka mas-uulo wasiirku diyaar buu ahaa 2 saacadood ka hore ninka raagay waa aniga marka horta waan idinka raaligelinayaa aad iyo aad raagista aan raagnay raalli ahaad anigaa ka mas-uula caawa sidaa baaruud iyo ibraahim kalaji u sheegeen sidii runtii madaxweyneheenu inu furay waxaa caawin marka wasiirka laakiin waxaanu jecelnahay inaynu wixii karaankeenna communitigeenu waxaanu ku wanaagsanay reer Virginia inkastoo aynaan badnayn runtii anigu waxaan ku tiriyaa inaynu nahay communitiyada ugu tayada wanaagsan leh intayna inaga maqanna waynu ka daba tegi doonaa wixii aanu samayn karayno waynu samayn doonaa marka intaasaan anigu aad iyo aad baa mahadsantihiin intaasaan commentskayga kusoo koobayaa waxaan iminkana kusoo dhaweynayaa wasiirka arrimaha dibadda Somaliland بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مدنيال يمروين بوان السلام يا نوضح عندنا سنة هي ما أنت مالين شقاء هاي كوردنا لغا صور روحي بريتنا تاي مالين شغل وكله دون إن شاء الله بإذن الله الكريم اسكو دي دونين هذا الكينا نصوك هو وحن زوج تاقي شن قضب يوحوي وجهددي سعودال كيغا يوحي عن مقرب قراني إنه وحوي بنيان وحير إنكشك يو وزارة أهلها الدبدة يحولي هذا إنه وحوي بالحالة ودنك
inkastoo laga yaabo inay idinku iga dhow yihiinba inaan wax yar ka idhaahdo dabeedna aan u gudubno arrinka abaaraha iyo wixii laga yeelayo dabeedna su-aaliya jawaab marka u dambeysa inaan fursadda aydan siiyo markaan ku bilaabo ujeeddadii aan halkan aan ku yimi waftigii ka socday ula socday madaxweynuhu arrintii ugu ballaarnaa ee halkan yimi wuxuu yimi sanadkii 2019 afar sano kasoo horreeyay wasiir ku-xigeenkaygaa yimi kal hore waxyar yimi markaa inaan u warramo inaan cid ka arko dowladda Mareykanka oo ugu warramo oo uga warramo xaaladda waddanka himiladeena iyo mataqaanaa fikirkeenu ka qabno tadawurka imika ka jira gobolka ayaan horta aanu imi iyo sidii cilaaqaadkeena aynu wanaajin lahayn waxaan kaloo imin inaan idiin warramo idinkala soo qayb galo 26 guuradii dabaaldigii aynu dhignay markii la soo noqonay xornimada maalinta idinkamaan soo gaarin nasiib darro waan kasoo gaari kari waayey laakiin caawin kaga faa'iidaysanaa munaasabadan kalena waxa weeye inaynu bal wax iska weydiino wixii aynu ka tari karro dadkeennii ku tabaaloobay abaarihii ballaarnaa ayna soo maray kalena waxay idin xafiiskeennii inaan si rasmi u furo shalay waanu furay alxamdulilah iyo bal hadda sidii loo tayeyn lahaa mataqaanaa loo kordhin lahaa shaqaalihiisi taana runtii way ku jirtay waxyaabaha muhiim intii aan joognay waxa waa maalintii saddexaad ee maalinta afraad ugu yahay isniin salaasiya rasmaan saddexaad aynu maraynay maanta waxaanu ka qayb galnay ilaa 10 kulan baan filaynahay waxaanu aragnay dad ka socda wasaaradaha qaar USA dad ka socda hay'adahan NGO-da ururay leeyihiin oo la kulanay think tanks waan la kulanay iyagana xubin ka tirsan baarlamaanka lafteedana waa la kulanay marka intaaba waa la kulanay Somalilandna waa uga sheekeynay qadiyadeeda iyo xaaladdeedaba diyaargarowgaan ka gudbo oo aan u gudbo inaan wax yar ka taabtaabto wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda runtii waa wasaaradihii ugu horreeyey ee la magacaabay 1991kiiba dowladdii ugu horreysay Cabdiraxmaan Axmed Cali waxay ka kooban tahay wasaaraddu wasiirka iyo wasiiru dowle iyo wasiir ku-xigeen inta badan wasaaraddu 3 qof buu leeyahay iminka waxaa kaloo uga sii hooseeya maamulka wasaaradda agaasimaha guud amba DG-ga Director Generalka waxaanay ka kooban tahay 7 department bay ka kooban tahay departments waxa weeye waa kan siyaasadda iyo ka protocolka iyo kan administrationka communicationka mid legalka waa xagga sharciyada iyo mid xagga qorshaha planning and research intaas ka kooban tahay waxaan wakiilo ku leenahay ilaa 22 wadan ku leenahay caalamka qaarna waa xafiisyo qaarna runtii waa qof la magacaabay weeye siyaasaddeenu waxay leedahay 3 tir waxa weeye waa siyaasadda oo la xiriira hagaajinta cilaaqaadka caalamka aynu la leenahay iyo ictiraafka tirka kalena waa dhaqaalaha sidii aynu dhaqaale aynu uga heli lahayn dowladaha iyo maalgashadayaasha kalena waxa weeye waa xagga security-ga sidii aynu u heli lahayn dad aynu iska kaashano xagga nabadgelyada kaafreedna waxa weeye wuxuu la xiriiraa qurba joog amba diaspora ayuu la xiriiraa haddaan intaa ka gudbo oo aan u gudbo xaaladda waddanka 3 qodob baan isku taagayaa qodob waxa weeye waa abaaraha qodobna waxa weeye waa doorashooyinka qodobna waxa weeye waa xagga sicir bararka xagga abaaraha aysa ula socotaanba abaar xun oo aad iyo aad xun runtii tii ugu xumayda inta la xasuusan yahay inta noole xasuusantay tii ugu xumayd bay ahayd ayayna soo martay sanadkii hore iyo sanadkan ba horaantiisii alxamdulilah marka roobkii ugu daayay oo arrinkaas uu inaga jabay xagga biyaha marka la eego abaartaas waxay saameysay ilaa 1,600,000 ayaa lagu qiyaasaa
waddankoo dhanna way saamaysay hase yeeshee sooliya sanaag baa weliba si gaara togdheer markii dambe ayay runtii si gaara usii saamaysay dadka u baahan mucaawanada degdega ee gaarka ah ee aan sugi karin waxaa lagu qiyaasay ilaa 385,000 oo qof baa lagu qiyaasay xaaladda imkaan hortaalla waxa weeye sidii dadkii xooluhu ka baxeen 7% xoolihii way naga baxeen dadkii xooluhu ka baxeen sidii maxaa yidhahdaa loo xooleyn lahaa dadkii guuray meeshoodii ka guuray sidii loo soo celin lahaa meeshoodii loogu soo celin lahaa iyo sidii runtii aynu uga diyaargaroobi lahayn abaartan kusoo noqonaysaa marka dambe ay noo timaado inaanay xaaladdan oo kale nooga iman aynu kugu diyaargaroonay sidee nooga iman lahay sanadkan dabaaldegii 26-ka waxaa loogu talagalay in runtii munaasabadaas ay noqoto markii beri hore ay ka ahaan jirtay munaasabad maxaan idhahdaa aynu dee feestayno inakoo xusayna weli laakiin lagu xuso sidii wax loogu qaban lahaa dadkeena tabaaloobay waxaa la isla gartay inaynu u baahanay ilaa $6 milyan oo lacag gaaraysa wuxuu xogay jirjira oon dadkeena uga baahanay inuu ka wararno kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba intii gudaha joogtay ilaa iyo waxaa la marayaa $3 milyan iyo 200 baa la marayaa waxaa nagu hadhay runtii waxa weeye waa $2 milyan iyo 800 ayay nagu hadhay qorshuhu markaa waxa weeye lacagtan loo isticmaalo sidan soo socota in 12,000 oo qoys lagu celiyo meeshay ka yimaadeen wadda meel kala jooga maadaama roobka uu daay in 10,000 oo family la xooleeyo oo ari loo iibiyo iyo maxaa yidhahdaa yaryaba ari iyo geelba loo iibiyo iyo in aynu 25 ceel aynu qodno oo dhaadheer iyo inaynu 18 haroo waaweyn lafteeda aynu qodno iyo inaynu 35,000 oo beeraley laga caawiyo sidii ay u beeran lahaayeen beerahooda siirkii iyo maxaa cagaftii si loo siin lahaa iyo sidii 12 seera aynu samaysan lahayn tan intaas hadii noo hirgasho alxamdulilah abaarta way soo noqonaysaa dee berigii hore waxay soo noqon jirtay 10 sanadood iyo 5 sanadood mar laakiin imika 3 sanadood 2 sanadood mar bay soo noqonaysaa marka taynu hubnaynu soo noqonayso aynu si weel samaysanayna lacagta waa la qaybiyey qurba jooga waxa lagu qaybiyey 660,000 baa lagu qaybiyey maraykan haddii aad tihiin waxa lagu qaybiyey 45,000 oo dollar baa lagu qaybiyey xagga doorashooyinka haddaan u gudbo sida wax looga qaban karo waan usoo noqon doonaa laakiin haddaan u gudbo doorashooyinka hase ula socotaanba waxaa nagu soo aadan bisha November 13-keeda doorashadii madaxweynaha ayay nagu soo aadan doorashadaas had iyo jeer waxay martaa 3 marxaladood marxaladii ugu horreeyay oo la soo gudubnay diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaynu ku maraynaa marxaladii labaad ee sidii kaarka loogu qaybin lahaa cidii isdiiwaangelisay waxaa lagu bilaabay labadii gobolii ugu horreeyay awdal iyo saaxil bishii hore ayna soo dhaaftay 29-keeda baa la bilaabay shalay bay dhammaatay maxay dhahdaa salaasadii 22-kii bisha waxaa ku xigi doona togdheer iyo maroodi jeex waxay bilaabi doonaan 8 July waxaa laga booday June waa ramadaantii haddaan ramadaanta waxba la qaban karin marka July bay bilaabi doontaa 8-deeda insha Allah bidnaahi kariim Suuriya sanadna 22 July ay bilaabi doonaan ilaa iyo Oxford soo doonaan dabeedna November 13-keeda ayay insha Allah geli doonaa doorashadii dowladda runtii wixii looga baahnaa oo dhan way samaysay lacag aad iyo aad fara badan baa inaga gashay doorashooyinka taasoo runtii ka tarjumaysa ahmiyadda uu arrinkaas uu leeyahay weli waxay nagu hadhay lacagtii loo baahnaa maalinta doorashada ay dhacayso si loo sameeyo hay-adaha runtii nala shaqeeya iyo dowladaha nala shaqeeya laftigooda gacan weyn bay ka geysteen waxaana runtii lagu qaaligareeyey dhowrkaa jeer in dub u dhignay ayaa aad iyo aad runtii lagu qaaligareeyey maxaana nasiib darro laakiin kalsooni weyn baanu qabnaa inay doorashada dhici doonto xilligeedii xor iyo xalaal ay ahaan doonto insha Allah bidnillaahi alkariim isagana kulli wax badan baa ka maqashay maan u malaynaya waddanka waxaa ka yara jira sicir barar baa ka jira sicir bararkaas runtii wuxuu ka yimi tashirinkeenu muddo badan ayuu fadhiyey runtii laga soo bilaabo malaa 2000-kii ilaa iyo dhowaan runtii wuu fadhiyey aad buu fiicnaa laakiin sidii xoolihii loo joojiyey ka hore markii xoolaha la joojiyey
Sacuudi uu inaga joojiyey dagaalkuna uu ka bilowday Yemen way xoreen waxay tegi jireen Yemen boqolkiiba 20 boqolkiiba 80 waxay tegi jireen waddanka Carabta taas waxay aad iyo aad hoos ugu dhigtay lacagtii adkayd ee dibadda inaga soo geli jirtay xawaalada lafteeda sidii berigii hore maaha dadkii waddanka cilaaqaadka la lahaa ee waaweynaan ay wax diri jiray rag iyo dumarba in badan runtii way baxday dhalinyaro ay dhashay dhalinyarada kastoo wax dirto dana sidii dadkii hore maaha cilaaqaadkii runtii malaha labadaa meelood baxa xoolaha iyo xawaaladii lacagta inaga soo geli jirtay adag labadiiba runtii waxaad moodaa in ay hoos u dhaceen dabcan inaynu xoolaheenii boqolkiiba 78 iyo lafteedana ay baxeen lafteedii dhaqaalihii aad iyo aad ayay hoos ugu dhigtay waxay intaa dheer waddankii runtii imka lacagta socotay lagu qaatay wax lagu kala iibsadaa noqotay dollar berigii hore shilinka Soomaaliga ahaan jirtay laakiin saad baa la isticmaalaa baalashlaha iyo ra'iislaha iyo wax kastoo la iibsadaba waxa la siiyaa dollar baa la siiyaa mobile lacagta ku jirta mobile-ka dollarka marka talaftigeedu waxay hoos u dhigtay isticmaalkii lacagteena iyo baahidii loo qabay lacagteena dadna qiimaheedii ay runtii hoos u dhigtay iyadana xaqiiq waxaa wax kastoo aan baan qoodano aan isticmaalo waxaynu ka keenaa dibadda waxaynu ka soo saarno waddanka yaayar waxaynu dhoofino xoolaha sidii dhoofin jiray wax kale dhoofinaya runtii iska yar waxaynu dhoofin jiray waxa ahayd waa xoolaha iyo harag iyo beeyada saddexdaa shay aynu dhoofin jiray xoolihii meesha way ka baxeen harageena markaa xoolaba jira hargeysa meesha uu ka baxay waxay ugu soo dhigay waa beeyar dhooy iyaduna runtii wax sabab badan maaha طبعا waxaa loo baahan yahay sidii aynu arrinka uga bixi lahayn inaynu ka baxno inaynu suuq keliya ay xoolaheenu ay tagaan waxay u baahan suuqyo badan baynu runtii u baahannahay caalamka halkan neefka nool aynu dhoofin waxay u baahannahay inaynu hilib inaynu dhoofin ku baahannahay marka warshad baa hadda laga sameeyey burco insha allah aan jeclayn dhowaan la furi doono waxaynu kaloo u baahannahay runtii inaynu wax soo saarnaynu u baahannahay qurba jooggu markay waddanka ay tagaan inta badan aba dhul bay iibsadaan bannaan baaday ugu wanaagsanaadaan dhul waxay ka dhisaan daar bay ka dhisaan waxay u baahan runtii wax soo saarka inaynu gelino inaynu dhulka iyo gidaarka lagu soo wareejinayo iyo daarteeda laga dhisayo inaynu ka gudubno oo runtii u gudubno sidii aynu maalgashan lahayn wax soo saarka amba beer ha noqoto amba warshad ha noqoto amba kalluun ha noqoto xeeb dheer baynu leenahay dadkeenu ma badna waa 4 milyan 4 milyan ba waxaynu ku noolaan karnaa xeebtaynu ku noolaan karnaa runtii waxbaa loo baahan u weel samaysano intaas baa runtii loo baahay idinkaa cilmiga ah sidii loogu weel samaysan lahaa taa idinkaa idinka baahay soo fiirsan waddanka haddii markaan dib ugu soo noqdo abaarta iyo gurmadkeeda sidaan hore u sheegay qurba jooga waxaa kusoo beegmay 660,000 sida loo kala qaybsaday waxa weeye Yurub waxaa lagu qaybiyey 354,000 baa lagu qaybiyey North America Canada iyo Mareykan waxaa lagu qaybiyey 85,000 Australia waxaa lagu qaybiyey 30,000 bariga dhexe waxaa lagu qaybiyey 127,000 baa lagu qaybiyey Afrikana waxaa lagu qaybiyey 64,000 marka Afrika iyo Mareykanka iyo Canada runtii isku dhow yihiin aad buu kala fogaa waxaan ogahay inaan ahayn markii ugu horreysay leedin hor yimi maalin walba telefoon baa la soo diraa kaba sokow waxaa guud ahaan loo wariyo qaadan ahaan hase yeeshee dee la iska tegi maayo inta la tuhmaayo laga tegi maayo waa la isku soo noqonayaa maantana waa hor taagan Britain waa hor iman doonaa insha Allah bismillahi kariim laakiin qof walba waxa baxsato runtii wax ka baxaya ma wax dadna sistema ma wax kaliya ku leedahay yani xoolaha waxa kaliya ku leedahay runtii waxa ku tan la kulli horba waa sameeyay guddi la sameeyo culays ku dhameeyaan idinkeedu ku dhacay intii joogto Washington iyo Virginia Maryland hareeraheeda waddanka oo dhan Mareykanka oo dhan hawshan loo qaybiyo haddii imika 10 magaalo oo aan ku badan nahay la cayimo oo guddi laga sameeyo oo mid walba la saaro 10 waa 40 masaasi ku dhamaanay 40 masaasi ku dhamaanay marka taasi intaan waxa uu diri lahaydeen runtii aan idinka yahay waliidin hawan yahay inkastoo aan ku badnay inaan dadkeena aan ku badnay eeriyada dana alxamdulillah waa dad unda iska ladan baan deeflaya aan rajeynaya professional oo dad iskooda u shaqaysta waa dad awoodi kara marka horta
أرجع وحلو بايرنتي لقى هول دراسة والخصاب بدنا إن شاء الله نكون واحد مساعد تارجت بين نقصنا 6 مليون يهدي بديه اللي جريس كذا مدير ودك على عقد ودرتان معلم والب هدي رئيس كذا 6 مليون يلا بقولكم عفري أنت نغربها جبت أنا لا يا بنات كيران لا بقولكم جودهن كلاسكو جيت كان دبت تشوف عفري أنت هاي ما أشكرين كرر إن شاء الله وكاو قردون تاني محمد كوكب جبينا يوم كسكو واحترق دتكي كتبها لوي يوم تقعنا تغيير دتكينا إن إذا لفتي واحد شعلا إن إذا كبر هذا الشيء أنا كقيم كشان سي تير كره وزارة الداخلية هذا بدو قيم دين لهذين خاصة تير كحاجة سياسة ده يعني اعترافك قفل وايد كده كم بقول عذيا قفل بيقول لي إم بي بوليه هاي محمود بعن فهمتين اللوبي كرينه إم بياشينا محمود بعن هاي صاحب كويا لنا حتى الشعب أمريكا يصاحب كويا لنا إنجليز كبرلمان كيس واحد كلنا هاي واحد هذا all party friends of Somaliland و حبنا كترسم برلمان كالسعودية أحزاب تورن حزب محافظ كي حزب الليبر كا حزب شقالها حزب الكلام هذا الليبرال كينتهم سوري لفت كذا ساس وكلا إن شاء الله نقسم بيننا نسمى صاحبين وكيا لنا برلمان إذا لفت صاحبين وكيا لنا ضد كم نلجم سواء واحد جرى إنجليز كان سومالي أنجلو سومالي سوسايتي بريغوري سومالي سومالي بيهانجرتون حوي وضد كي كسر شبين جري وضد كي هاي أنا بدت كنا تكلم لا حريرة بصاحبه كلام ويانا أنا بكلفت كذا وفلان على ذلك سمايو صاحب هذا السومالي ما كده سمايو شعب كلفت كيس تودي هو اللي له وكل له من وضد جنتي حبي نوع بدل هاي المتقن تبقى الله سيدي لو اعتراف الهاي ودن كنا بالعلاقة ونكسنا وقسم السنة هاي ودن كان مريكا إما كان السوشيال ميديا هذا الاستعمال رتي واحد بدل لو قاري كان هذا دي قفل بها كيس وكاو قالوا السوشيال جروبس كيف مال هو الصومالي لاني يقول لي هاي محمد ضد الكلام دو كشف يسيو وقال حريرو كريسوتيو هؤلاء وضع وكله بكرهيو رتي واحد سيدا واحد بدل بعض كقبل كتامين كاجا كرت هذا الكي انت سبب سوق جبينيا مركا وحنا نقول بين قيبته ودمسيه هاي سؤالي جوابه وحي سؤالي ويدينا سام سؤال وينيا wax kasta way weydiin kartaan هذا community يجي عاوزة من ما فصح به وصوص لو سيان ورايا لكن سدا laga tagi maaye guri walba lagu garaaco talacagta abaarta inta maqan laga soo qoro ku talinaha in hada su'aasheena soo noqdo in wasiir dekadii berbera oo TDD buu lagu wareejiyay marka lacag dhaco wasaaradda maaliyadda toos u dhacday baa jirtay lacagta wax dambe oo hadal hayna iyo wax loogu qabtay dalka midna dib uma maqal inkastoo adigu ah wasiirka maaliyadda haddana waxa laga yaabaa inaad wuxuu ka ogtahay bal lacagta see dalka loogu qaybiyay maxay ka baxday aadna ku salaamaya wasaaradda maaliyadda lagu wareejiyay xasnada dawladda ay gashay waxay ka mid noqotay budgetka dawladda bay ka mid noqotay marka wixii loogu talagalay budgetka ayuu baa lagu isticmaalay innaka xaaladda abaarta awadeed iyo xoolihii naga xidmay awadeed dabcan dhaawac badan baa soo gaaray dakhligii dawladdu soo geli jiray wixii lagu tashaday markii hore la sameeyay budgetka kala hore marka waxay naga buuxisay maalihii ay lacagtu ay naga dhimatay dakhligiina soo geli jiray abaaraha awadeed iyo mataanade iyo runtii lacagtu naga yaratay awadeed marka miisaaniyaddan bay ka mid tahay miisaaniyadda gashay si gaar ah looga qayb محمد كنت أعلم مهمة كهذا الشيء one of the things that I mentioned كسرعة كاملة سيدي ودنكي وأنا رنتاي ودنك ما تقعد ما تقعد وحن هذا كسمرو بقول لي بسدي وأول عاي ولا قبسني وحيالها كلو لما تدعى أنا أمسوعك حكمل دولة أيام فضل سدتك إن البزنس ما يستعمل أما creativity على ما تبلغت مركا وحي مقتين تدخل بكرة كرما أما لايسنس هذا أما هذا فكر الدولة اللفت قيب كتها ونقول فكر يدك أنا ودك ما لك شرع مركا عقبتها أرمها كوسابسا سارنا تنسوق هذا ماشان عندك المرايكا لايسنس تونتو
I think license in Virginia was $75. waxaa laga yaabaa haddii aan codsado online ku diro 3 days inuu igu yimaado. I can imagine hadda Hargeysa markaad istiraado license raadso ama wax furo takes very very long time unless maaragtay ama laaluusha marka bixisid waxaankaas oo kala haddaanay xaaladdu isbedel laakiin anu runtii waxaan jeclaan lahaa balaarinta inaad waxyar ka tiraado ah naga jahil bixisid maxaa arrintaas haddaynu rumayn dhaqaale waddanku soo galo wax looga qaban kari lahaa. hargeysa 2012 la yidhahdo doing business oo laga sameeyey 183 dalba laga sameeyey waxaa la eegayay bal carqaladaha ka hor yimaada guud ahaanbaba ganacsiga waddanka. waxaanu ka galnay 157 waxaanu ka galnay waxyaaba qaarna runtii wax kasoo baxaynu ku wanaagsanay waxyaaba qaarna ay yihiin carqalado loo baahan yahay in wax laga qabto. markaa ka bacdi wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga waxay bilowday sidii loo sameyn lahaa reformka waxaa ka mid ahaa in la abuuro one stop shop, meel keliya uu qofku ugu soo hagaago. sida caadiga qofku inuu dhowr meelood soo maro, wasaaradda maaliyadda waa inaad soo marto, wasaaradda ganacsiga waa inaad soo marto, xiriiryaha waa inaad soo marto, dhowr meelood baa lasoo maraa. marka way ku dheeraataa qofka. markaa si qofka loogu fududeeyo ayaa waxa la yidhi meel keliya, xafiis keliya ha loo sameeyo. xafiiska waxay naga caawiyo qolada World Bank. waxaan rajeynaya dhowaan insha Allah billahi kariim inuu diyaar noqon doono. marka labaad ku noqoto maalgashi ahaan in aanad wareegin ayaan runtii aan rajeynaya. laakiin waynu u baahanay dadkeenu u fududeyno inay maalgashadaan waddanka. waayo maalgashi baynu u baahanay, haddii kale ma abuuri karo shaqada aynu u baahanay. dhallinyaradeen waa bilcamal weyn, sidii kale shaqo uga abuuri kartaan waxa weeye adigo maalgashi keeno runtii. maasanta دكتور سعد سولو magacayga waa maxamed xasan. su-aal gaaban baan anigoo waxaad sheegtay barnaamijyadan abaaraha loogu talagalay in lagu fulinayo 6 milyan oo dollar oo dadka laga soo ururinayo. warbaahintaase waxaa lagu daabacay markii madaxweynuhu ku dhawaaqay mashruucan inay 10 milyan lasoo ururinayo. marka 40 milyan meel kale ka imanaysaa mise waxaa dib baa loo dhigo waxaa laga dhigay 6 milyan? waa run khudbadii madaxweynaha tobankaa runtii si loo qeybiyo weli imay soo gaadhin. laakiin horta waa inaku hadda weli cid kale ku xisaabtami mayno, gudaha iyo dabadba inaku ma isku xisaabtamayno. marka waa 10 milyan dad soo eegto wax laga yaabaa in dee loo arkay inay yihiin wax aad iyo aad u weyn oo adag sidaa loo helaa. laakiin runtii wax adag maaha. dhaqaalaheenu guud ahaan marka la isu geeyo waa 1.5 billion weeye more or less GDP-ga. 10 milyan waa wax aad iyo aad u yar marka runtii la barbardhigo. marka 6 milyan iyo 10 milyan ba runtii waxaan qabaa inaynu iska ururin karro gudaha iyo dibadba. waa arrin inoo yaallo weeye. waxay idinkaga soo hagaagay 40 milyan dheeraadkan hadda waa laydin soo sheegi, laakiin 6 milyan hore waxay idinkaga soo hagaagay 45 kun. waa run waynu xusi jirnay 26 sannadood baynu xusnay, 5 sannadood ka horreeyey 26kiina waynu xusnay. xusidu isma bedelin, laakiin habka loo xusaya baa isira bedelay. halkii aynu fanaaniin kaga xusi jirnay iyo habeenkaa inaynu madadaalo kaga xusi jirnay, sanadkan waxa lagaga xusay sidii wax loo tari lahaa dadka tabaaloobay. waayo abaartu waa arrin cusub runtii. weliba abaartu inaguma cusub, laakiin mid laxaad ka dhig runtii waa mid inagu cusub. dee hawlo badanna way noo yaalaan oo cidaynu ku hadlayna dadkeennii ma jiro. marka in maalinta la weyneeyo oo lagu xuso sidii dadka loo taakuleen lahaa runtii waxay tilmaamaysaa sida Somaliland ahaan aynu isugu xidhannahay. maxaan idhahnaa waynu isugu kalsoonnahay oo doonayno inaynu inaku waxayna qabsano dadkeennana u qabanno. waxbay noo siyaadinaysaa runtii, waxbay naga dhicin mayso. bismillaahi raxmaani raxiim. wallay maqlayaa si fiican. magacayda Sahra Jaamac Madan. wasiirka waan salaamayaa, dadka ka soo qayb galay community-ga waan salaamayaa. wasiirka waxaa weydiinayaa su-aal. kolley wasiirka arrimaha dibaddu de isaga arrimihii dibadda iyo xeedhada salkeeda uu og yahay. waxaa weydiinayaa waxaana la yidhaahdaa kolba waxa inoo saxeexay xamar ba inoo saxeexday
maxay ahayd dekada oo idinku waa laydaan cidiraafsano waxba laydinma saxeexi karo marka waxaasa de lagu mashquulsanaa de bal xeedhada gunteeda waad ogtay dadka cadda cidda inoo saxeexday habeenkan caawa بسم الله الرحمن الرحيم قلت له به هشيس بينو قالي من نوع هو وكيد كده من نوع كي صدق لبضوا أنا قاعد سرح لبضوا لما ميلودهم ببنانا ينسرح ميل سومالي لأن يميل كمبيني قالوا سرحنا يميل إماراتك دول الإمارات مركز عد سدحات وإنه وهرسي وورقة داسة مجري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد بليرها waxaan wasiirka uu horta wad saaman tahay salaanka bacdina waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waan ognahay inay abaaro xumidi ku dhaceen oo ballaaran halkana community-ga yar arkaysaa wixii aan qaban karnay aan qabanno runtii aan inta ordaynay ama ha noqoto family ama ha noqoto more maaragtay waxaan gaarsiin karnaa dadka laakiin su-aashaydu waxa weeyaan idinkoo hawlo badan idinku dhaceen haddana dhaliil badan baa la sheegayay oo waxaa la yidhi dee barigu waa dhul ballaaran oo xoolo leya oo aan cidiba aqoonin oo maaragtay magaalooyinka markay wax ka dhacaan agagaarkeeda waa la ogyahay oo waa loo gurmadaa laakiin aan dad dhibaato badan dhacday oo maaragtay aan aada loo gaadhsiinin kolleyba canaanna laydinka dayn maaya canaantuna ay ku jirtay waxaa jirta lacago oo loo guray abaaraha oo haddana aan la sarrifin oo dadkaas dhibaataysan la gaadhsiin marka waxaan rabaa inaad nooga taataabato arrimahaas wax iyo halka imanka xaalku marayo oo dee inkasta aada noo sheegteenba bismillahi raxmaan raxiim dasaad u sheegtayba abaartu waa abaar baahsan bay ahayd gobol iyo degmo runtii ka badbaadi may jirin laakiin waxay kusii cuslayd gobollada bariga sanaag iyo sool iyo togdheer bay runtii si gaara usii taabatay innaka waxaanu leenahay iyagoo samaysanay guddida laydhado ka hortagga abaaraha guddidaas waxay ka kooban tahay niman wadaadaa iyo niman baac mushtariya iyo xubno dowladda ka socda laakiin runtii nimanka gacanta ku haya waxa weeye waa ganacsatada iyo mashaayikhdeena runtii hawshu way ballaarnayd iyo baahidu meel walbana way ka jirtay laakiin waxaan halkan kaaga xaqiijinayaa in runtii aada iyo aada loogu dadaalay gobollada bariga su-aashan haraan marar badan lai weydiiyey waxaa la yidhi telefishinada had iyo jeer waxaa ka soo baxa wax laga sameynayo gobolladan galbeedka laakiin waxba kama aragno wax laga qabanayo gobollada bariga marka micnaheedu taami waxa weeye waxba looma qabta miyaha maya runtii saa maaha xagga bariga saxaafaddu inta badan maadaama ay dheertay wax laga yaaba inaanay tegin ida lafteeda dhaqanku waa kala jaad waxaa laga yaabaa dadka gabilay jooga inaanay waxba ka qaban telefishinka uu sawirto amba is hortaago marar fara badan waxa laga yaaba xagga bari dadka inadaan ahana sawirina marka xagga muuqaalka telefishinka way kaga yaryihiin laakiin xagga dadaalka sida loogu dadaalay gobollada wallahi dadaal badan ba ilaahay ka siiyo jazaayi ayay maxay dhahday guddidu ay gelisay sidii wax loogu tiri lahaa maxay dhahday dadkeena bariga aniga bari ahaan waxba loogu tirin dee baahidaa jirtay dadkeena wuu noo simayo mar walba meesha ugu baahida badan leh ayay dee culays la saarayeen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام يا وزيرك. سؤال شيء وحوي بعدما أدير كإنتالك لرجلي دولة الإمارات وحق عاصمات كنا حتى وحنا سامين أبارين عروتي يدمر كيبا أي صعوبة بعدين محي investment كأي سمينا يعني دلك كسمينا يعني مكان مدتها إلى كلتها شتين حق عاصماتك
bacdama anagu caafimaadkaanu nahay dumar ahaan halkana ka shaqayno qolooyinkii dubay ku dhalan gaareenna aanu nahay sidee baan muxuu ahaa arrimaha aan uga qayb geli karnaa xagga caafimaadka oo aan jecelnahay weliba xilalka aan loo dhiibin ragga because ragga waa la arkay nitaajka waxaa hadda na haysta dhibaatooyinkaynu dheerayn laa xad السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تمركي خاصة هشيس كده ما إنه قال لي وحنا قعد سنين وحنا قال قبتان أبارها وحنا نوجو بلان قاعدين نسين دون 11 مليون دولار راشين بالسوسي دوان دملا تكدو تاجنا مرنا مركب كين الراشن وحبوا كقوان نفقد وحبي كقوان يسعى فماتك إن شاء الله من الكريم حكروا كم ذا شيسكا إني وحنا قال قبتان حاجة عافماتك هي حاجة وحبر الشذر يعني قال قبتان بركة إن شاء الله ورجينا يعني قال قبتان الإمارات وحنا قاعدين نبع إسبيتال من بالبراء يوم من برعاء اسمه ذيم كمري متك بالبراء نصف مري رنتيم كحاجة لفتي وحبي قال قبتان maxaanu ka qaban karnaa anagu haddii aanu nahay dadka caafimaadka ka shaqeeya waddankan ee gudihii laga qaban karo runtii wax badan baa laga qaban karaa waxaaba ugu badan ba aan isleeyahay wax badan bay tari kartaa wax ka bedeli kartaa xaaladda caafimaad ee waddanka ka taagan in dadka bal wax loo sheego bal dadka waxyaabo fara badan uu reerku qabsan karaaba jirta hooyadu qaban kartaaba jirta oo iyadoo runtii garasho la-aan mararka qaarkood waxa laga yaabaa in ilmaheeda bay u badbaadin kari weydo amba wax yeeshaba iyadoo sayid uu xutir marka wacyigelin in dadka la wacyigeliyo lagu wacyigeliyo arrimaha caafimaadka runtii wax badan bay tari kartaa cusbitaalada iyo hay'adaha caafimaadka ka shaqeeya halkan iyada lafteeda haddii lagu soo xidho kuweyn waxbay ka qaban kartaa haddii cusbitaalada waaweyn halkan lagu xidho cusbitaaladeena waxbay ka qaban kartaa haddii scholarship laynoo siin karo dhallinyaradeenna caafimaadka iminka baritaalkan la keeno waxbay ka qaban kartaa haddii la abaabulo dhakhaatiir in la kaxeeyo oo toddobaad ama 2 toddobaad waddanka ay kusoo wareegaan dadka inoo daweeyaan waxbaa laga qaban karaa marka runtii waxyaabo fara badan baa laga qaban karaa iminka waa dhakhaatiir baa mararka qaarkood inooga timaada waddamadan carabta waddankan Finland wax badan bay runtii laftooda inooga qabataa oo dadka caafimaadka bartay oo qurba jooga ee Soomaalida ee jooga Finland ay barnaamij u sameeyeen in waddanka ay kusoo noqdaan oo ka shaqeeyaan si dadka uga qaban lahaayeen السلام عليكم والسلام يا مركب رئيس الوزير سلام كذب وحكاك ما حد علنا يا والله الموضوع مركب رئيس الصومال الذي فإن نقول هذا الشيء ذاتك ذلك كيما هذا بدنا في إنجليزي يعرف إذا تكوري ريان مركب وحكاك ما حد علنا يا طلبات هذا النظيف هو عن سياسة سنين إن نقول هذا الشيء أنا كاك ما حد علنا يا لو سؤال ابن سرعة سنة يهدي لي وقال لي هاي تكوان waxaad ka hadashay sicir bararkana dadka aqoon-yahaniinta ee hadda ka hadla waxay intooda badan ku eedeeyaan dabar la-aanta dowladda ay ganacsiga u samaysay oo shirkadaha ay waxay doonaan ku dhaqmaan tan labaad maaliyadda ayaa carabka ku dhufatay maaliyaddana dee meesheedii bay joogtaa waxba isma bedesho farsamo cusubna ma keentaan marka cashuuraha aad qaadaan ma doonaysaan inaad bedeshaan oo income taxi oo kale qof kasta oo mushaar qaato inaad cashuur ka qaadaan si uu dhaqaalaha u kordho iyo guryaha ay dadku leeyihiin inaad cashuur ka qaadaan ma doonaysaan tan ugu dambayso waxaan jeclahay inaad sharaxaad naga siiso waxaa badanaa ay dadku shaki ka qabaan heshiiska aad tiri anigaa saxiixay oo ay su-aal ka daba timid markii la arkay 19% in Ethiopia ay leedahay faa'iidada markii aad baarlamaanka geenayseen midna sheegin markii ay soo baxdayna faahfaahin badan ka midna bixin waa maasanta iyo habku ka yimaado inay ganacsatada xariga goysay waxay doontay wax ku iibso horta sicir bararku amba sixirka lacagta waxa keena baahida loo qabo iyo marba sida loo helo supply and demand haddii doolarku uu bato qiimihiisu uu dhaca hadduu doolarku yaraado wuu qaaligarooba markuu doolarku qaaligaroobo lacagteena qiimaheedu hoos u dhaca horta waa sidaas marka runtii meesha sicir bararku ka yimi maaha ganacsatada iyadu waxay doontaba ay ku iibisay oo u baahan mataqaanaa saacadta ay ku iibiso in la xadido maaha
laakiin waxa weeye doolarkiina soo geli jiray baa yaraaday wax soo saarkiinuna wuu yaryahay baahideena doolar ismay bedelin laakiin helitaankii doolarka isbedelay waayo xoolihii uu ka iman jiray ayaa laynaga joojiyey xawaaladii ka iman jirteen ayana waxaad moodaan runteena hoos u dhacday labadaas shay baa sababay sida ugu badan xalkuna runtii wuxuu noqonayaa un sidii aynu suuqyo kale aynu u raadsanayn xoolahaynu ugu raadsan lahayn amba wax kale aynu dhoofinaba u samayn lahayn kalluunkoo kale waa dhoofin karaa dabcan tacab badan buu u baahan yahay intaan la dhoofin inta la maalgashaday wadooyihii iyo dekedihii iyo qaboojiyayaashii iyo gaadiidkii iyo certificationkii iyo mataqaana meeshii loo dhoofin lahaa wan hawl badan laga galo laakiin waa waxaynu samayn karno milix baynu dhoofin karaa macdan baynu dhoofin karaa marka waxaynu u baahannahay runtii wax soo saarkeena inaynu badinno iyo waxaynu dibadda u dhoofinayno si aynu doolar badan aynu helno arrinka ku saabsan xagga cashuuraadka iyo wasaaradda maaliyadda waxaa la bilaabay public finance reform wax la yidhaahdo amba mataqaanaa tahiyeynta habka maaliyadda ee waddanka ayaa la sameeyey qolada world bank ayaa runtii naga caawisa iminka waa la dhamaystiray more or less waxaa ka mid a markaa qaabka cusub ee la doonayo in la dhaqangeliyo sidii aynu uga guuri lahayn cashuurtan ka imanaysaa waxaa soo degaanba waxa la dhoofiyo la cashuuro oo loogu guuri lahaa sidii loo cashuuri lahaa qofka dakhliga soo gala iminka miisaaniyadda dowladda ku shaqaysaa inta badan wax yarba mooyaane wuxuu ka yimaadaa dekeda berbera iyo wajaale halkaa mataqaanaa alaabta inaga soo gasho amba ay ka baxdo marka sidii taa aynu uga gudbi lahayn dakhli u cashuuri lahayn si loogu guuri lahaa ayaa runtii iminka habkeedii la wadaa marka kaa waa la wadaa arrinka ku saabsan mashruucan dekeda iyo lahaanshaha ka qaybgelinta lahaanshaha dowladda Ethiopia ee 19% ayaad maqashay ilaa iminka shirkadda la wareegtay dekeda ee maamusha la yidhaahdo DP World Berbera waxaa wadalee imaaraadka iyo innaka laakiin mabda'iyan waxaan isla qaadanay iyada laftigeeda in laga qaybgeliyo dowladda Ethiopia maadaama dekedu ay u adeegi doonto waxa dhoofaya iyo wax u soo degi doona Ethiopia innaka imka baahideena waxa dabooli kara dekeda maanta jirta laakiin waxaan u ballaarsanaynaa waxa weeye sidii aynu u suurtagelin lahayn in Ethiopia waxna ka dhoofiso waxna kala soo degto dhaqaalaha Ethiopia aad iyo aad buu koraya dadkoodana wadadaadi fara badan 100 milyan bay ka badan yihiin 2050 waxaa la filayaa in ilaa 250 milyan ay noqdaan dhowr iyo 20 sannadood mar bay laba laabmay tiradooda laba laabmaysan waqti marka dadkaas runtii aan u weersanaysan imka ganacsiga naga dhaxeeya innaka iyo Ethiopia ma dheeli tira wax badan baynu ka keenaa in wax weyn ma dhoofino waqtigan xaadirka ah marka sidii kaliya inuu dheeli tira wax weyn khidmad aynu sameeyno khidmadan waxaan uga sameyn karnaa dekeda marka sida uu isticmaalaan waa ku soo jiidasho iska manayna iska siina mayno boqolkiiba 19 ee way maal gashanayaan guud ahaan maalgashiga loo baahan yahay waa 440 milyan wixii kaga soo hagaagaya dabcan ay la baxayaan maaha waxaynu iska siinayno dekedana cidina lama laha dekeda tayminka jirta iyo cusubba qaranka iskale cidna maynaan siinin laakiin waxa weeye waynu ka cibbaynu ka kareen shirkadan maamulaysan inana waynu la leenahay runtiina waynu qayb baynu ka nahay maamulkeeda laftigeeda wax aynu totally iska wada wareejinayba maaha hawlaha qaarna mabaynaan wareejinba laba hawloodba dekeda laga qabtaa midna waxa la hawlaha maraakiibta midna waxa weeye waa dejintii rarista hawlaha maraakiibta weli hay'adii awalba jiri jirtay Somaliland Port Authority ayaa sidii gacanta ugu haysa laakiin waxaynu runtii ay shirkadan ay qabanaysaa waxa weeye waa xamaal waa dejintii rarida badaacada su-aashaan ku weydiinayaa waxa weeye way naga badan tahay mushkiladan abaarto adduun weynuhu muxuu inoo geystay maxaasay nagaga yimid taa waxaan u leeyahay abaartani East Africa oo dhan bay saamaysay aad baa looga hadlaa xataa summit baa jiray United Nations-ka laga hadlayay taa maxaynu ka hadlay bishii October in ahayd baan mareynaa kala hore markii abaartu ay bilowgaba ahayd ayaa waxaynu diray baaq baynu caalamka u diray in laynaga caawiyo oo laynaga taakuleeyo markii ka dambeysana runtii baaq kale aynu ka daba geynay dhowr baaq bay naga baxay oo ku saabsan sidii loogu soo gurman lahaa
waxtarku intii hore runtii mid muuqda muu ahayn laakiin intii ka dambeysay bilowgii sanadkan runtii dadaal baa ka muuqday hay-adaha samafalka ee arrinka inaga caawiya uu soo taraayay xitaa markii hore xiriir maynaan lahayn xiriir badan may lahayn guddida abaaraha guddida ka hortagga abaaraha iyo hay-adahan caalamiga xiriir caynkaasa may lahayn laakiin inta xiriirkaas runtii waxaa mudda sidii hore inuu kasoo wanaagsanaanayo wada shaqayn ay jirto su-aasha laftigeeda ayaan weydiiyey UN-ka iyo waddamada ina caawiyaba waxaa la ii soo diray warqad dheer oo waraaqo badan oo hay-ad waliba waxay qabatay marka on paper xagga markaad eegto dee waxyaabaha iyagu ay ka warbixiyeen inay qabtaan ay ka qabteen waddanka runtii way badan yihiin waanay ka qabteen haddii biyo noqoto haddii raashin noqoto khaasatan xagga caafimaadka runtii wax fara badan ayay ka qabteen laakiin waxaa laga qabtay maaha wax runtii daboolaya iyo baahida aynuu qabno amba biyo amba maxaa caafimaad amba mataqaanaa cunto runtii weli maaha waxaa la sameeyey baaq guud ahaan oo loo sameeyey Soomaaliya oo ilaa $1 bilyan oo dollar lacagta intii badan runtii waa lagu ballan qaaday waynu sugi doonaa lacagtaas dee markay timaado wixii naga soo gaaray waynu arki doonaa laakiin iminka waqtigan xaadirka runtii innaka ayaa go'aansanay in halkan isku tashano iyagana ka quusan mayno baryadana ka dayn mayno baaqana ka dayn mayno waynu wadaynaa laakiin iskuna hadlayn mayno mataqaano gacmaha laaban mayno innaka isku tashayno horta marka hore wixii naga soo gaana waynu arki doonaa insha allah It's okay. I'll do my thing. wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad aad iyo aad u mahadsan sida tafatiran su'aalihii aan weydiinay inoogu jawaabay